dhammaantiin madashan quruxda badan iyo maalinta quruxda badan ee maalintii adduunka la aasaasay axadda iyo maamulaheedaba mascade iyo dadkii soo qaban qaabiyay shirka boqortooyada ajuuraan ee muddo dheer ummadda Soomaaliyeed difaacday u soo talisay mar labaad iyo mar saddex waxaa taariikhda ilaa Faysal oo gudoomiyaha ahaa beesha ajuuraan ama boqortooyada ajuuraan iyo ilaa iyo dadkii ugu dambeeyay baa ka hadlay taariikhda beesha ajuuraan iyo kaalinta ay ka soo qaadatay halgankii dheeraa ee ummadda Soomaaliyeed lagu difaacayay cirdigooda ciidooda diintooda sharaftooda karaamadooda bad iyo bariba waxay ku leeyihiin taariikh dahabi ah xaqiiqatan tay burbur baa inagu dhacay markii burburku inagu dhacay ONLF oo dhimbil ka dhaxdalatay ahaa WSLF burburkeedii iyadana oo ku guul daraysatay inay dalkii xoreyso iyo dawladda Soomaaliyeed oo ku burburtay ONLF waxay wajahday cadawgii ummadda Soomaaliyeed iyo buuraha dadkii ka soo jeeday ee burburiyay Soomaaliya sidii bayna u taagan tahay beesha ajuuraan kaalin libaax bay ku leeyihiin halganadii hore markii laga tago ee iyagu masuulkaba ka ahaayeen u hayeen hadday tahay SWL hadday tahay geeshkii hadday tahay muxuu ahaayay daraawiishtii hadday tahay muxuu ahaa WSLF oon hadda ka xusi karo saraakiishii ugu adadkayd ee taliyayaasha gutooyinka ka ahaa maxamed garad nin la yidhaahdo maxamed garad cabdullaahi diiriye diille baa la dhihi jiray taliyayaashii WSLF buu ka mid ahaa inuu nool yahay iyo in kale ma sheegi karo waxaa kale oo runtii iyaguna qayb libax ka soo qaatay gorfo gaarane oo raggii kililka nala dhisay ahaa raggii Soomaaliyeed ee adadka waxaa ka mid ahaa Generaal Cabdicasiis Olol Diinle dhowr iyo 90 inuu dhintaan u malaynayaa runtii dad figures adag yay leeyihiin beeshaas waana beeshii yani runtii maanta inaynu Soomaali ahaano xeebta intaad la eeg aad aragteen aynu yeelano iskama imaanin xeebtaasi ay hadda xataa oramadii inagu dawaacayso wax iska yimid ma aha dhiig rag iyo gabdho yaa geed kasta iyo meel kasta oo xeebteena ah dhiiggeennii baa meeshaas yaalla soo ceeb inaguma aha iyaga oo waqti kooban inay adduunka oo dhan ka difaacaan xeebaha intaa la eeg iyo dhulka bariga intaa aragtay leeg dadkeennii inaguna aynu maanta ay qaar iibin hayaanba ummadda Soomaaliyeed waa bir wayna nooshahay afar qof oo dabaqoodhi ah ama jaajuus ana ma matali karto oo mana hadli karto xeebaha nagana ma gadi karaan Ethiopia iyadoo dhulkeenni ku maqan yahay ay maanta aynu sayrac ka wada hadalay iyo lug haya iyo berbera insult bay nagu tahay ay bay nagu tahay boqortooyadii baan soo celinaynaa adal iyo boqortooyadii ajuuraan ee difaaci jiray xeebaha iyo dhulka waa inay madax ka noqdaan sida uu sheegay ninkii iga horeeyay waa inaan sharafno waa inaynu qorro sidii professorku sheegay taariikhdeena dahabka dadka leh waa inaan qorro waa inaynu oogno taariikhdeena idinkuna haddaydan istaagin away muxuu haddaydan idinku u kicina oo idin u istaagina nina idin kici maayo waa inaad taariikhdiina qortaan waad mahadsantihiin